qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada Beledweyne ayaa waxay kormeereen xaafadaha magaaladaasi. Fafaahinta warkan waxaa magaalada Beledweyne inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud oo wafdiga xildhibaanadaasi maalmahan kula sugan magaalada Beledweyne. xildhibaanadan ka kooban labada aqal ee baarlamaanka ayaa kormeerkan waxa ay ku tageen xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne iyagoo u kurgalaya xaaladda guud ee magaalada, waxaana xildhibaanada ay booqdeen goobo loogu talagalay in laga dhigo qorshaha sida uu yahay xarun caafimaad oo magaalada iyo dadweynaha ku dhaqanba ay ka faa'iideysan doonaan. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaana xaafada dhanka galbeed ee magaalada kula hadlay warbaahinta. waxaan indhindhaynaynaa waa annaga hadda wadadii dheereed oo maaragtay jayga dhex taagan magaalada nolosheeda iyo maaragtay inaan culimo awtiinka la kulanno dhalinyarta muxuu ahaaytay odayaasha dhaqanka dawladda weynta waabatiina soo dhaweysoon imaanay insha Allah Beledweyne wax laga bedelaan rajaynayna wax badan laga qabto. magaalada waa qurux badan tahay, dadka dhex jooga way qurux badan yihiin, yacni waxaan ku kabi karno hadee maamul iyo horumar ahna insha Allah inaan ka shaqeynaan rabnaa. waa sida aan u dhex taaganahay, waa gobolkan ka soo jeedno aan ku dhalanay, wixii cilada iyo wixii dhibaato iyo wixii problema inaan u gudbino dawladda federaalka ah gobolkaas ay wax badan ugu qabataa. waayo dadkii ka soo jeedo indhihiisa aheed baan nahay, indhihii gobolkaan nahay, shacabkana waa shacab wanaagsan, si wanaagsan noo soo wax la sheegaa ma jiraano. waxaad dareemaysaa muxuu ahay sida magaalada jahawareerkeeda lacag la'aanta ay ku hayso. ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa dawladda federaalka in si degdeg ah dadkan ay u soo caawiso. waxaan si gaar ah baaq ugu dirayaa hay'adaha samafalka waa inay soo caawiyaan dadkan, waa in la helaa shaqo abuur. dhalinyartii oo dhan waa wada baagamuudo, meeshii wax lagu gadanayo waa dollar, ma haystaan lacag. marka waa in dadkan wax loo qabtaa. haddii ay jirto dad la caawinayo, dadka ugu horeeya ee maanta caawimaad u baahan waa dadka degan gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. wixii horumar ay gaareen inaan maaragtay ku doogsano, waxay u baahan yihiin inaan ka qayb qaadano sida maaragtay horumarintooda, isbitaallo, maaragtay waxbarasho, iskuulo inaan loo hagaajiyo, jidadka dayactirka u baahan, ceelasha biyaha oo maaragtay mar walba dhibaatooyin fara badan naga soo gaaro, webiga arintiisa wixii maaragtay oo dhibaato oo shacabka ay nala soo gaari weyn inaan cagaada ugu imaano, indhahana ku aragno. hadda waxa la sheegayaa daacuun waqti badan socday, dhibaatadaas laftirkeeda inaan wax ka qabanno. safarkeenana basic wuxuu u ahaa u kuurgelid iyo nabadeyn beelaha dega Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. xildhibaanada federaalka waxaan u sheegaynaa, aan ku boorinaynaa inay booqdaan meelihii oo deegaan doorashadooda ahaa ay ka soo jeedeen, ay u kuurgalaan. run ahaantii safarkeennan iyo u kuurgelideennan wuxuu mudan yahay ku dayasho. safarkan waa sii wadi doonaa ilaa Buulo Bardaan tagi doonaa. waxaan waraysiyo qaas la yeelan doonaa dadka dega Hirshabeelle gaar ahaan Hiiraan, gobolka Hiiraan. aadaan ugu faraxsanahay, waxyaabo badanna waa qabanay, wax badanna waa qaban doonaa insha Allah. ugu dambeyntii xildhibaanadan waxa ay sheegeen in ay tageen goob loogu talagalay in dadweynaha ay ku ganacsadaan, laakiin iminka aysan ahayn goob ganacsi oo ay noqotay aag ciidan. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Beledweyne.